garas baaley sida la sheegay waxa waaye degmo sideedaba madaxweynaha jamhuuriyadda aqoonsado dekreeto ku soo saaro laakiin madaxweynaha waa loo taraarixiyaa madaxweynaha uu taraarixin u baahan yahay hadaa loo taraarixin iska soo qoorto markaani waa u taraarixiyay degma waxaan u aqoonsaday deegaan la dhisay halkan isbitaalka degmada garas baaley MCH ma ahan waa isbitaal rasmi ah oo buuxa oo adeegii isbitaal bixi lahaa u dhameystiray hadii la yiraahdo ayuu noqon doonaa marka waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan si gaar ah iyadana hambalyo gaar u jeedinayaa qadar jaarati oo runtii mashruucan aad iyo aad u taageeraysa oo maaragtay mashruucan naga garab siisay iyadana waa u mahad celinayaa mas'uuliyiinta ka socda iyo guud ahaan dawladda walaalahan ee qadar ay ka socdaanba aadan u mahad celinayaa intaas kadib sida la sheegay annaga maamul ahaan in aan ma aragtay daadejino adeega caafimaad ilaa heer degmo waxay maaragtay kamid yahay arrintaas waxay kamid tahay arrimaha hortebinta u leh maamulka gobolka banaadir sidaas daraadeed ayaan halkan isbitaalkan looga dhagax dhigay dhowr bilood kadibna waxaan rajaynaynaa in aan xariga ka jarno isagoo adeeg buuxa sii doono bulshada garas baaley ha ahaadaan kuwa toos u degan amba ha ahaadaan kuwa kusoo barakacay ee gobolada dalka ka imaaday markaan waxaan leeyahay mar labaad hambalyo mashruucan ma noqon doono mashruuca kaliya ee degmadan aan ka meel marine insha Allah taala mashaariic kale oo tiro badan oo wadada Xaaji Muxudiin oo ku baaqay ay kamid tahay iyadana waa ka fuli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo garas baaley sida la sheegay waxa waaye degmo sideedaba madaxweynaha jamhuuriyadda aqoonsado dekreeto ku soo saaro laakiin madaxweynaha waa loo taraarixiyaa madaxweynaha uu taraarixin u baahan yahay hadaa loo taraarixin iska soo qoorto markaani waa u taraarixiyay degma waxaan u aqoonsaday deegaan marka deegaan anaga u aqoonsaday taa fursad ay tahay haddana insha Allah taala waxaan rabaa halka inaan baaq idin kaga jeediyo wax kalena aan idin ballan qaado magaaladan 3 November waxaad ogtihiin oo dhowr iyo 20 maalmood ay ka dhiman tahay in doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka banaadir ay dhici doonaan reer garas baaley waxaan idin ka rabnaa adduunka ilaahay waxa waaye waa maasan tahay talaab waaye adduunka majadhiiqa waxaa la yiri midba maraa la siibaa xilli waxaa soo martay garas baaley ay degmo ahayn waa ka soo gudubteen xilli ay ahayd beel ayaa jirta waa ka soo gudubteen degma noqoteen hadda xoogaa waxaa la yiri dastuurkii arrimo siyaasadeed 90kii iyo waxyaabo kale oo isku qasano xal u baahan muqdisho 16 degmo lagu soo koobo laakiin doorashada midda xigto ilaahay idinkiis waxaan idin kala shaqayn doonaa garas baaley inay si toos idan u codeyso golayaasha deegaanka ay doorato laakiin kahor waxaa la idin ka rabaa inaad intii isdiiwaan gelisay ee hodan isku diiwaan gelisay ee degmadii aad asalka ka soo go'deen in aad kaararkii maaragtay codeynta aad qaadataan oo aad halkaas codkiina ku dhiibataan